Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waxaan kusoo jirnay maadadeennii quantity surveying ama cost estimation. Waxaan soo gaarnay chapterkeennii saddexaad column next. Column next wuxuu ka mid noqon karaa chapterkii aan soo dhaafaynay foundation work maadaama superstructure-kii weli aan la gaarin oo ground level-kii aan la gaarin. Chapterada qaar baa ku daro laakiin hadda aniga gooni ayaan uga qaaday. Anyway waxay haataba waxaan soo saaraynaa darsigeena koowaad ee chapterkeena saddexaad maanta quantity of formwork in column next. Quantity of formwork in column next. Koordalaha looga baahan yahay bilindiyaasha inta u dhaxayso cagta iyo dhulka laga soo gaarayo. Yacni waxa waaye shubkan markaan soo shubnay ee ahaa footingkii ama cagta hoose ee tiirka. Marka cagtaas hoose ilaa laga imaado dhulka ground level-ka waxaa ku jiro tiirka luquntiisa. Column next waxaa la dhahaa tiirka luquntiisa af Soomaali ahaan. Haddii aad magac kale u hayso waad ii faa'iideyn kartaa. Marka column next ayaan insha Allahu tacaala soo saaraynaa inta alwaax aan u baahannahay. Alwaax intee leeg si shubka uu noogu celiyo formwork waxaa la dhahaa alwaaxa ku celinaya shubka. Marka quantity intee leeg ayaa gelayso ayaan insha Allahu tacaala aan soo saaraynaa maanta. Waxa waaye column next dhammaan columnyada mashruuceena aan ka shaqaynayna waa kana waaye hore oo soo sheegnay waa 13 column waaye 13 tiir. 13 tiirba hal mar baan soo saaraynaa inta alwaax looga baahan yahay inta cagta iyo dhulka u dhaxayso. Haddii marka aan fiirino sectionkii waa kana noo muuqdaa waxaa waaye footingka ilaa ay laga imaado ground level-ka. inta geeskan ground level-ka waaye waa plinth beam-ka ama grade beam-ka insha Allahu tacaala cashirka noo xigo noqonaya ama chapterka noo xigo. Marka haddii aan planka aan u imaanana waa kana waa ujeedaa waxa waaye waa planka column-keena ama tiirkeena C1. haddii tiirar kale oo ka duwan ay jiraan C2 C3 aad oola baxaysaa laakiin hadda anaga hal tiir oo isku wada nooca waaye mashruucan waxaan ku samaynayno. Marka waa kana mashruuc waa ujeedaa 13kaas tiir column next-kooda inta alwaax ee looga baahan yahay baan hal mar soo saaraynaa. Marka si fiican ila soco maadaama formwork aan soo saarayno waxaan ku xisaabaynaa meter square parameterka oo lagu dhuftay height-ka. Marka parameterka saan ku helnaa parameterka waa kana tiirkeeni maadaama uu saan yahay cabir saar dimension garee waxa waaye 225 square waaye. Marka 225 oo lagu daray 225 oo lagu daray 225 oo lagu daray 225 waaye parameterkeena. Height-kana waa kana intaan ka fahmaynaa sectionka waxa waaye 300 oo millimeter ama waxa loo yaqaan 0.3 meter. Excel-kana aadayna. Marka intaan markaa fahamtay aan Excel-keeni toos u aadno. Okay hagaag. Excel-keeni waa kana hal mar soo kacso form cusub samayso waxaad leedahay right click move for copy then waxaad leedahay move to end create a copy aan hore u soo shaqeeyay. Hagaag inta ayuu mid cusub noogu sameeyay marka midkan cusub noo bedel inta maxaa dhahnaa formwork for column next. Afaan sama description number 1 waaye tan waxaa dhahdaa formwork for column next. column next inta waxay soo gashay hagaag meeqa xabo waaye numberkooda waa 13 column waaye. length-ga waa parameterkeena waaye. Okay parameterkeena meequu noqonayaa soo fur calculator-kaada. Okay calculator markaas noogu soo furto waa kana sectionkeena waa 0.3 oo 4 jeer la isku dhuftay sooma. Marka 0.225 4 jeer isku dhufo 0.2
225 times 4 waa 0.9 soo ma jeedid ama sidiisa isugu dar waxaa dhahdaa 225 plus 225 plus 225 plus 225 waxaad u qaybsaa marka convert to the meter waxaad u qaybsaa 1000 0.9 okay kullaba marka excel sheet keeni aan ka shaqeynaynay lengthga maxaa waaye waa 0.9 thicknesska muxuu ahaa garanaysaa waa 0.3 0.3 yes 0.3 markaan sameynay isla markiiba kaasaa uu noo soo dhigay quantity-ga u baahannahay meter cubic maahan square meter waaye meesha waa garanaysiin square meter waaye iska tir sidoo kale kana iska tir cubic maahan waxaa waaye waa meter square hagaag waxaan filayaa inaad fahamteen waxaan u baahannahay marka 3.51 marka taawalaha ama alwaaxa aan u baahannahay waa meeqa intaan waxaad u qaybisaa 0.8 hore aan kugu soo sheegay annagu badanaa waxaan isticmaalnaa alwaaxa taawalaha la yiraahdo 4 mitir 0.2 mitirka ah haddii ay mise alwaax aad u baahan tahay tirada maxaa waaye waa 3.51 u qaybi waxaa dhahdaa 3.51 oo loo qaybiyey 0.8 yani halkii taawale areadiis waxaa waaye 0.8 markaas u qaybisid intaan kuu soo baxayso marka waxaan u baahannahay 5 taawale alwaax lama kala gooyo badanaa 5 taawale ayaa soo gadanaysa saa u samayso dhammaan column next formagooda hope you understand this section waxaan filayaa inaad fahamteen cashkeen intaas ayuu noogu egyahay saan usoo saarno quantity-ga formwork of column next waxaa waaye 3.51 ama 5 taawalo alwaaxa ayaa noogu filan inaan soo saarno dhammaan waxaa waaye column intana bedel yes waxaa dhahdaa formwork for column next hope you understand inshallah I'll see you next lesson وعشكيني كوباد جابتركا سدحات column next quantity of formwork intaasi مع السلامة ayaan kaga tagayaa please waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto channelkeena si dad badan oo Soomaaliyeed uga faa'iideystaan duruustan taxanaha ah. Assalaamu calaykum.